بسم الله الرحمن الرحيم. كسو دوادا جانك مالمها waxaan idin soo gudbinaynaa qiso aad u qiimo badan. qisadan ayaa waxay ku saabsan tahay cadaaladda iyo qiimaha ay leedahay. qisadan ayaa waxay dhaxmartay Cali bani Abi Talib iyo nin Yahuudi ah. maalmaha kamid ah ayaa Cali bani Abi Talib wuxuu waayay cambur bireed uu lahaa oo uu siiyay rasuulka calayhi salaatu wasalaam. muddo kadib wuxuu arkay cambur bireedkii oo nin Yahuudi ku gaday suuqa. markaasuu wuxuu ku yiri ninkii Yahuudiga ahaa, cambur bireedkan aniga ayaa iska leh. habeen ayuu iga dhacay aniga oo socdo. ninkii Yahuudiga ahaa ayaa wuxuu ku yiri Cali, aniga ayaa iska leh. markii ay wada doodeen ayuu ninkii Yahuudiga ahaa wuxuu yiri, haddii aad dacwo qabto qaaliga ayaan wada aadaynaa. Cali xilligaasi wuxuu ahaa amiirka mu'miniinta, hase ahaatee ma uusan ka kibrin in lagu kala baxo sharciga islaamka. kadib labadoodii waxay soo wada aadeen qaaliga maxkamadda, waxaana xilliga maxkamadda ka ahaa qaali taabiciga weyn ee lagu magacaabo Shureex. markii uu tageen ayuu Shureex wuxuu ku yiri Cali bani Abi Talib, maxaad ku haysataa ninkan Yahuudiga ah? Cali wuxuu yiri, ninkani wuxuu wataa cambur bireed aniga aan leeyahay, waxaana ku arkay isagoo suuqa ku iibinayo. Shureex wuxuu fiiriyay ninkii Yahuudiga ahaa, wuxuuna ku yiri, maxaad adigu leedahay? wuxuu yiri, cambur bireedkan aniga ayaa iska leh, waxaana igu haysto amiirul mu'miniin Cali bani Abi Talib. kadib Shureex wuxuu ku yiri Cali, ma haysataa wax marqaati ah oo cadeynaya inaad cambur bireedkan leedahay? Cali wuxuu yiri, waxaa ii marqaatiya wiilkayga Xasan. qaaligii wuxuu yiri, wiilkaaga marqaati kuma noqon karo. Cali wuxuu yiri, subxaan allah, nin ka mid a dadka jannada miyaad leedahay marqaati kuma noqon karo? wuxuu yiri, miyaadan maqan rasuulka calayhi salaatu wasalaam inuu yiri, xasan iyo xuseen waa dhalinyarada jannada madaxdooda? Shureex wuxuu yiri, waa runtaa, balse anigu ma banaynayo in wiil oo aabihii marqaati u noqdo. Cali wuxuu ku yiri ninkii Yahuudiga ahaa, qaado cambur bireedkan, anigu ma haysto wax kale oo marqaatiya. ninkii Yahuudiga ayaa wuxuu ku yiri Cali, anigu waxaan marag furayaa inaad cambur bireedkan leedahay. markaasuu wuxuu yiri, yaa allah, ma amiirkii muslimiinta ayaa maxkamadda ila joogo, haddana waxaa lay xugmiyay cambur bireedkii uu isaga lahaa. wuxuu la hadlay qaaligii wuxuuna ku yiri, waxaan kuu sheegay qaaliyow, cambuurkan Cali ayaa iska leh, wuxuuna uga dhacay meesha la yiraahdo Sifiin, waxaana marqaati ka ahay in diinta islaamka ay tahay diin cadaalada. waxaana maanta laga bilaabo rumaynayaa allah subxaanahu wa tacaala iyo rasuulkiisa. kadib wuxuu ku dhawaaqay shahaadateynka, sida ayuu ku soo islaamay. Cali markuu ninkii soo islaamay ayuu wuxuu ku yiri, maadaama aad soo islaamtay, anigana waxaan kuu hibeynayaa cambur bireedkii aad haysatay, waxaana kugu daray farastaan ee qaado. labadaba adiga ayaa iskale saacadan laga bilaabo. qisadan waxaan ka faa'iideynaa sida asxaabta rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay dadka cadaalad ugu sameynayeen. Cali wuxuu ahaa xilligaas amiirka mu'miniinta, balse amiirnimadiisii kama aysan reebin inuu cadaaladda hortago isla markaana sharciga uu hoggaansamo. allah subxaanahu wa tacaala mar waliba wuxuu garab taagan yahay, isla markaana uu la jiraa dadka mar waliba cadaaladda isku maamula. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. haddii aad ku cusub tahay janalka maalmaha, fadlan sabskaraab dheh gamalelkan riix si ay kuu soo gaaraan waxyaabo cusub aan soo dhigi doono. mahadsanid.